السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kelyuhu waxay ka mid yihiin xubnaha ugu muhiimsan jidhkeenna waxaanay qabtaan shaqo badan. Caafimaad qabka kelyuhuna waxay muhiim u tahay caafimaadka jidhkeenna. Haddaba waxaa jira dad siyaabo kala duwan uga cawda caafimaad darro ka haysata kelyaha. Cabashada ugu badan ee kelyuhuna waa dhagaxaanta ama quruuruxa ku samaysma kelyaha, kuwaasoo dad badani ay dhibaato ku qabaan. Haddaba haddii aad tahay qof ka cabanaya dhagxaantaas ama quruuruxa gala kelyaha, inta aanad dhakhtar tagin waxaad isticmaashaa sharaabkan hore loo tijaabiyey, kaasoo insha Allahu furi doona kelyaha kana saari doona dhagxaanta ama quruuruxa ku jira. Si aad sharaabka u diyaarsatana, ugu horreyn waxaad soo qaadaa biyo aad ka miirtay xabad liin dhanaana, kadibna waxaad ku sii dartaa koob aad ku shubtay biyo kulul. Waxaanad ku sii dartaa 2 malqaacadood oo ah khalka ama sharaabka laga sameeyay tufaaxa. Kadibna saddexdaa shay oo aad isku dartay ayaad xoog isugu walaaqaysaa. Waxaanad cabbaysaa wax yar kadib markay qaboobaan oo kulaylkii uu ka bo'o. Waxaanad cabbaysaa 60 daqiiqaba mar ama 60 daqiiqo markaad joogtaba hal mar. Kadibna waxaad ka daba cabbaysaa biyo badan, biyo caadi ah intaad cabbi karto ee ugu badan. Waanad wadaysaa cabbitaankan ilaa inta aad ka xaqiiqsanayso inuu kaa tagay xanuunkii kelyuhu. Ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. Waad mahadsantihiin. Xubuubi luqaax waa shayga aynu u naqaano guushka shinnida. Waa meesha shinnidu ay ku dhex samayso malabka. Haddaba guushkan shinnida oo la warshadeeyey loona diyaariyey in la cuno waa shay cajiib ah oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. Waxaa loo yaqaanaa dawada dhammayska tiran. Waxaa ka buuxa midhahan yaryar faytamiino iyo macaadin. Haddii aad ogaato waxtarka midhahan yaryarna, waxay kugu dhalinaysaa inaad si joogto ah u isticmaasho. Waxtarka caafimaad ee midhahan yaryari ay leeyihiinna waxaa ka mid ah waxay xoojiyaan kartida iyo firfircoonida jidhka. Waxaana la isku raacay inay yihiin shayga ugu degdega badan ee daweeya xanuunada ku dhaca maqaarka. Dhinaca kalena waxay dawo ka yihiin xanuunada ku dhaca sanbabada, waxaanay ka hortagaan xanuunada keena neef-qabatowga. Isla markaana iyadoo la sheegay waqtiyadan dambe xanuunada ay dadku aad uga cawdaan inay ka mid tahay xasaasiyaddu, ayaa midhahani waxay meesha ka saaraan mushkiladda xasaasiyadda. Dhinaca kalena midhahan yaryar ee laga sameeyey guushka shinnidu waxay meesha ka saaraan bakteeriyada iyo jeermiska ku dhasha caloosha iyo guud ahaanba uurku jirta. Waxaanay ilaa xad u fiican yihiin oo ay xoojiyaan aragtida indhaha. Waxaanay dawo ka yihiin cilladaha keena dhalla-aanta rag iyo dumarba. Waxaad u isticmaali kartaa midhahan yaryar inaad sidooda u isticmaasho oo aad cunto subax kasta iyo inaad quraacda ku darsato. Ilaahayna sida saxda ah hayna waafajiyo. Waad mahadsantihiin.